عيديد حسين ديري وويل كحانو صنايا مقالة بورما عاصمة gobolka Awdal maraan saakab ku booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada Boorama ayaa waxa uu caydiidii xaqiijiyay inuu xanuunkaasi muddo 2 sano sariirta la jiifo waxaana ii sheegay inuu 2015 oo baabuur iska lahaa caydiid la dhacay waxaana ii faahfaahiyay xanuunka iyo dhibta haysata caydiid waxaana ii sheegay walaal haddii aan kaaga warramo xaaladaydu waa barakaysan tahay alxamdulillaah dhibaato weyn ayaa yeeshay aniga gaadhiga ila rugmaday sanadkii 2015 xanuunka waxaan qabaa 2 sano imika sida dhabarkan ka jabay spinal cord-ka meesha la yiraahdo ayaan ka jabay waa isku xidhka dabadeed waa halkaas suunqabadka halkan aan ka saxarooda halka dadku ka saxarooda kama saxaroodaan halkaas baagiga xidhan ka saxarooda waxaan dhakhtar walba waan soo maray markii hore waan shaqaysanayay oo nin iska shaqaysto oo reerkiisa maamushaan ahaa gaadhiga lahaa un baa ila rogmaday marka hanti wixii aan lahaa way raacday gurigii aan dhistay Hindiya ku tagay deyn baa laga soo yeesho waa kaad anigu ogeeyay inaad lacagta ay keenteen walina hadana deynkii uu sii yaalaa qoodeen ilaa 9500 ayaa waxa weeyaan laga soo yeeshay intii kale iska dhaaf marka xaaladayda xanuunku waxa weeyaan walaal markii uu horeysay aan halka shilka galay alxayaat baa la dhigay alxayaat 10 cishan yaala waxba la qaban waayay Addis Ababa la geeyay Addis Ababa waxaan fadhiyay bil waa la igu soo kabay waxa la igu kabay biro iga waaweyn oo xajmigayga ka waaweyn biro 8 cm halkii la iga kabi lahaa ayaa biro 12 cm la igu kabay dhabarkaygii neefis baa la baqtiyay kale caafimaad qaba marka walaal waan kala baqtiisanahay ilaahay maana igu keenay alxamdulillaah dadkuna runtii caafimaadkiisa ku jeceli caafimaadkii waa la igu wada nacay oo macal islaantaydii horidaydii wadkayga iga tagay dabadeed waan ka imiday markaan Addis Ababa bisha fadhiyeen ka soo noqday gurigayga iska imiday waxaan gurigayga iska fadhiyaba hadana gurigii waan iibiyay gurigii aan joogay dabadeed Hindiyan tagay Hindiya 6 bilood baan soo fadhiyay Hindiyan markaa bariil la iga soo furay wali hadana xaaladaydu waa tan Hindiya la igu soo qalay halka la soo kala gooyay hargeysa waxaan tagay ilaa 5 jeer 6 jeer diracyada bedsoriska sariirta ay goysay diracyada halbowlaha ay go'an waan iska alxamdulillaah waan la baryaa waa kan Caydiid Xuseen Diiri oo mar kale fariin u dirsanaya walaalaha muxsiniinta ah wuxuuna sheegay walaalahayga muslimiinta waxaan hawada u marinayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin saad kolba ii soo xasuusanaysaan ninkii arkaaba way ileeyahay oo iga naxayo ilaahay wuxuu yiri iska naxana waan ii naxariisan waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta oo nololeeyaha walaalaha ay arkaya iga naxaya kii arkaaba uu iga naxayo inta adiga naxaysa in la ilaahay adigana ha ku qariyo walaalaha ka naxo hooyo khadra cilmi qaalib oo ah hooyada dhashay Caydiid ayaa ii faahfaahisay dhibta iyo rafaadka haysata Caydiid waa tan hooyada oo si murugo leh uga waramaysa ayaa waxay tilmaamtay waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka oo dhan salaan kadib waa sida inaka yar sheegay waxaan ay Caydiid hooyadii maxaan ku oraa masiibadu waa wareegto oo waxa weeyaan habeenba meel bay ka daba hooynaysaa waxa weeyaan wiilkani waa horaba waan u sheegay aqoon ayuu hareer ayuu u weynaa aqoonta iyo lafihiisaba wuu u shaqaynayay adduun wixii aan lahayn wuu raacay amar Allah oo shil gaariye ayaa nagu yimiday way iska indha tireen dadkii mas'uulka ahaa ama gobolka joogay ama xukuumadda maxaan ku oraa Hargeysa wadanka ka mas'uul ah way iska indha tireen 2 bilood ayaan Hargeysa kula maqnaa 2 bilood waxaan hoos joogay kolba meel baan gujinay dawaayo waxa la nafta urub ku waaminta tala markay ka xoog roonaato qof wada qaatay baa tahay wadigaasina kolba gaar kugu tuuriyo geed kugu tuuriyo dawaad iska maxaan ku oraa muquuranaysa markaan meelo fara badan baan soo maray
hargeysa 2 bilood baan ku maqnaa agoontii halkaan ku hayay waan dayacay isagoo hindiya ku maqnaa waxba uma qabanaynin dhibaatooyin fara badan oo ilaahay uu ku keeno ugu mahadnaqay alanka imaga ayaa qabsaday ala kulli xaal hindiya laga keen halkan uu yimiday alanka imaga dhakhtar baan kula jirnaa waagi bariba dhakhtar baan kula jirnaa dawaan ugu socota haddana ilaahay mahadi weejaan marka waxaan anigu hooyadii meelo fara badan oo xukuumadda aan la soo maray oo madaxweyne ku xigeenku kamid ahaa oo wasiiradu kamid ahaayeen way iska indha tireen si walba waan ugu cawday alanka imiga warqadii deynta ahayd ee deynta hindiya ku qornayd xafiisyada way taala hargeysa way taala xitaa way haysaa tawfiiq wanu dhibo way haysaa ninkan naxayo deynka inta laga ama ilmaha dhagataysanay ilkaasi ku dhagataysan ha soo bixiya maanade ala kullu waxaan bixinayna inta la yidhi 2 bilood 3 bilood waqtigii ka lumiyeen lacagtii hindiya inama yaryar baa bixiyo arday ahaabaa 2 kun bixiyay wixii lacag 500 ana bixiyay intii kaltii la nagu leeyahay bal soo mustafriyo la keenay mar kale hooyada oo hadalkeeda sii wata ayaa cod dheer u dirtay walaalaha muxsiniinta ah isla markaasina ka dalbatay in loo soo gurmado walaal Caydiid oo ku xanuunsanaya magaalada Boorame caasimadda gobolka Awdal waxayna tiri waxaan baaqo dirsanayaa horta khayr Allah idin siiyaan leeyahay waxaan leeyahay sida noo damqada baan leeyahay waa walaalkiin waa ina yar isagu bashalay buu shaqaysanayay ama waalid ha ahaado ama maxaan ku eraa walaal yar oo soo koraya ha ahaado waxaan leeyahay walaalkiin u soo damqada abood ma hayo agoon waan haystaa ilaahay baa abood la wuu igu xoog roon yahay maantana xaaladiisu ciriiri ayay ku jirtaa marka waxaan leeyahay walaalahayo soo damqada walaalkiin ana waan idin soo ducaynayaa isku soo wada duubo Caydiid Xuseen Diiri oo ah wiil dhalinyaro isla markaasina siday hooyo Khadra ay sheegtay wiil shaqaysan jiray haatanina xanuunkaasi sariirta la jiifo ayaa waxay ka dalbatay walaalaha muxsiniinta ah in loo soo gurmado walaal Caydiid ku xanuunsanaya magaalada Boorame caasimadda gobolka Awdal Cabdirasaaq Cumar Miicaad Cabdirasaaq Awliyo شبكة عالمية بورما نيوز بورما.